Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Mar walba waxay inooga barateen inaan idiin soo gudbino qisooyinka waanooyinka ah ee ku saabsan qofka inuu ku wana qaato ama qofka inuu ku soo hanuuno. Insha Allah qisadana maanta waxaanu ka hadli doonaa wiil dhalinyaro ah oo 16 jir ah uga hadli doonaa insha Allah dhalinyaro ku soo dhawaada. Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo 16 sano jiro. Wuxuu ahaa wiil ay waalidiintiisu ku dadaaleen tarbiyadiisa. Wuxuu ahaa wiil diintu ku firfircoon oona jeclaa mar waliba in afkiisa iyo gacantiisa dadka ay ka nabad helaan. Dadka ma uusan dhibi jirin. Salaada waqtigeeda ayuu ku tukan jiray. Sadaqada wuu dhiiban jiray. Macsidana wuu iska ilaalin jiray. Wuxuu ahaa nin naftiisa ka adag. Maalin maalmaha ka mid ah asagoo fadhiya masjidka akhrinayana quraan, wuxuu sugayay salaada casirka ilaa laga gaaro ama salaada casirka intii laga aqimayo. Kadib daqiiqado waxaa loo istaagay salaada. Wuxuuna isu duubay kitaabkii uu akhrinayay. Wuxuu istaagay salaada inuu tukado. Kadib wuu wareeray. Wadnaha ayaana aad u garaacmay. Wuxuu ku dhacay dhulka. Waxaa ku soo kala orday dadkii masjidka ku tukanayay, waxaana loola cararay isbitaalka. Markii tiktoorka loo geeyay ayaa la baaray. Tiktoorka wuxuu ogaaday inuu aad u xanuunsanayo, xaaladiisuna ay aad u daran tahay. Tiktoorka oo naxsan oona isdhahaya ninkaani badbaadi ayaa wiilkii wuxuu gacanta ka qabtay tiktoorkii, wuxuuna dhegta ugu sheegay tiktoorkii. Tiktoorkii wuu ooyay, wiilkiina wuu ashahaatay, wuuna dhintay. Kadib ayaa dadkii waxay weydiiyeen, muxuu kuu sheegay wiilkan intuusan dhiman? Markaas ayuu tiktoorkii yidhi, wuxuu igu yidhi, tiktoore, waxba ha isku kaydaalin. Aniga booskayga aan jannada ku lahaa hadda ayaan arkayaa. Subxaana allah. suuradii aayadda qur-aankana waxay ahayd ina aladiina qaaluu rabbuna allah suma istaqaamuu an tatanazala calayhum malaa'ikatun alaa taqaafuu walaa taxsanuu waabshiruu bijannati alatii kuntum tuucaduun. ilaahay subxaana wa tacaala dhammaantayna haynaga dhigo kuwa qaatuma wanaagsan ku dhigto ee ku dhinta. ilaahayna nagama dhigo kuwii ayagoo dariiqa xun maraayay dhinto. dhammaanteenana waxaan isu dardaarmaynaa xanuun iyo wanaag insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. gaarsii walaalahaaga aad la jeceshahay khayrka inay kula wadaagaan. inta hanuunsanna ilaahay hanuunka ha u siyaadiya, intii baadiyeysanna ilaahay ha soo hanuuniyo. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.